بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah hogaamiyaha sare ee Iiraan oo heegan buuxa geliyay ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee wadankaasi iyadoo banaanbaxyada ka socda wadankuna imika ay galeen habeenkii 14aad waxaa sii kordhaysa tirada qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca Iiraan waxay ku eedeynaysaa Mareykanka iyo Israa'iil in ay dab ka horinayaan wadankaasi wararkii ugu dambeeyay amuurahan ayaan barnaamijka idinkugu haynaa maxamed Cabdi oo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn hogaamiyaha ruuxiga ee wadanka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa ciidamada ilaalada qaranka feejignaan iyo geliyay heegan iyadoo lagu guda jiro mid ka badan diyaar garowgii iyo feejignaantii la galay dagaalkii ugu dambeeyay Israa'iil la galay saraakiisha ka tirsan jamhuuriyadda islaamiga ayaa u sheegay mid ka mid ah warbaahinta reer galbeedka in wadanka 14 maalmood ay rabshado sii socdeen hogaamiyaha ayaa amar ku siiyay ciidamada ilaalada kacaanka in ay feejignaan xoog la galaan diyaar garoobaan anna waxay ka sarreysaa baa la yiri diyaar garowgii wadanka uu galay dagaalkii Juun sanadkii hore lala galay Israa'iil sida uu mas'uulkaas sare u sheegay mid ka mid ah warbaahinta reer galbeedka waxaan ku dhownahay uu yiri in aan xiriir toos ah la yeelano ciidamada ilaalada kacaanka iyo booliiska waxaan aaminsanahay in khatar aysan jirin la xiriirta in ciidamada ilaalada kacaanka dad ka mid ah in ay ku biiraan mucaaradka ama ay jagooyinkooda baneeyaan waxaa kaloo sidoo kale laga hadlay in wadanka mustaqbalkiisa uu ku xiran yahay gacmaha ciidamada ilaalada kacaanka saraakiisha Iiraan ayaa sheegaya in gantaaladii ku jiray magaalooyin dhulka hoostiisa ah kulligood diyaar laga dhigay haddii khatar dibadda la dareemo mid ka mid ah saraakiisha ayaa ku canseeray warbixino la xiriira in toddobaadkii la soo dhaafay Khamenei laftigiisa uu qorsheynay inuu cararo wadanka Ruushka markii kacdoonka ka dhanka xukuumadda uu ballaartay waxa uu yiri hogaamiyaha meel uu socdo ma jirto xataa haddii cirka wadanka Iiraan ay hareeyaan diyaaradaha wax duqeeya ee la yiraahdo B-52 howlgallada ciidamada Syria ayaa sheegay in la joojiyay dhammaan howlgalladii militariga ee ka socday xaafadda la yiraahdo Sheikh Mas'ud ee magaalada Xalab sida laga soo xiganay warbaahinta rasmiga laga sii daayay xukuumadda ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay ka eriyeen dagaalyahanadii Kurdishka ahaa ee SDF magaalada Tabaq ee ku taala waqooyiga bari ee Suuriya kadib markii hubkoodii gacanta lagu dhigay waxaana intaas lagu daray in ciidamada ay bilaabi doonaan in hay'adaha caafimaadka iyo gargaar loo fidin doono dadka degan Sheikh Mas'ud xukuumadda hay'adaheedana lagu wareejin doono tartiibna ciidamada looga saari doono mar sii horeysay ilaha xukuumadda militariga ayaa sheegay in warbaahinta dhowr xubnood oo ka tirsan SDF ku sugnaa isbitaalka Yaasiin in ay isu dhiibeen ciidamada Suuriya xoogagii Kurdiga ahaa ayaa ku gacan saaray wararka ka soo baxaya dhanka xukuumadda oo beenanaya in howlgalladii militariga ay istaageen bayaan ay soo saareen SDF oo ah xoogaga Kurdiyiinta ayaa sheegay in ay isku dayayso dawladda inay maran habaabiso dadweynaha waxayna sheegeen dagaalkii wali in uu socdo dagaalkana dhowrkii maalmood ugu dambeeyay ayuu si xoog loo socday warbixino isdhaafsan ayaa labada dhinac ka soo baxaya ee la xiriira xaaladda Sheikh Mas'ud halka dagaalada ay dardar galeen dhowrkii maalmood ugu dambeeyay marka laga gudbo eedeymaha labada dhinac ay jeedinayaan la xiriira dagaalka iyo in la dejiyo dagaalka ururka Hamas ayaa digniin ka bixiyay qatarta ay lugaha gashatay maamulka Falastiiniyiinta ciidamada ammaanka oo aad ugu fogaaday in ay soo qabqabtaan hogaamiyaal iyo horwadeenno ku sugnaa daanta galbeed ururka Hamas ayaa bayaankooda ku sheegay
in siyaasiyiinta maamulka falastiiniinta ee dardargeliyeen inay xiraan odayaal ka howlgelayay daanta galbeed, waxayna taasi kordhinaysaa xiisadda ka jirta daanta galbeed. bayaankan ayaa lagu sheegay in dadka iska caabinaya Israa'iil la xirxiro iyo dadka hoggaanka u ah lana caburiyo codadka xorta ah ayaa waxa ay keenaysaa in dhalinyaradii dalka waxgalka u ahaa la xirxiro. taasna waxa ay fududaynaysaa in daanta galbeed in deegaana looga sameeyo cadowga Israa'iil. hadafkaasna wuxuu u adeegayaa ciidanka Israa'iil. dhaqdhaqaaqa ururka Xamaas ayaa ku baaqay in si dhaqso ah ay u soo afjarto maamulka Falastiiniyiinta caburinta ay ku hayso dadka Falastiiniyiinta ah. wargeyska xagga dhaqaalaha ka hadla la yiraahdo The Wall Street Journal ayaa soo xigtay saraakiil Israa'iiliyiin oo sheegaya in howlgal military lagu qaaday rabo Lubnaan, lagana yaabo in loo baahan yahay in la taageero ciidamada Lubnaan si ay hubka uga dhigaan ururka Xamaas. sida warbixinta ku xusan, saraakiisha Israa'iil ayaa aaminsan in cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed oo keliya inaynan ku filnayn in ururka Xisbullah awooddeeda militariga wax looga qabto. waxayna ku doodayaan in cadaadis kale uu muhiim noqon karo oo ah in ciidanka waddanka Lubnaan ay awood ballaaran yeeshaan oo dhulka dhan ay ayaga maamulaan. saraakiishan ayaa sheegay in howlgal kasta looga gol leeyahay in lagu daciifiyo hubkana looga dhigo ururka Xamaas, kaabayaasheeda lagu burburiyo si loo xadido saameynta ay ku leeyihiin koonfurta waddanka Lubnaan. warbixintan ayaa imaanaysa iyadoo xiisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Lubnaan ee xuduudka ka jirta ay sii kordhayso. waxaa sidoo kale socda walwal caalami ah oo la xiriira khatarta ka imaan karta dagaalka gobolka oo ballaarta. xukuumadda Lubnaan ayaa dhowr goor ku nuuxnuuxsatay in arrinta hubka Xisbullah uu yahay arrimaha gudaha ee waddanka Lubnaan ah, halka Xisbullahna ay ku gacan sayreen baaqaqa la xiriira inay hubka dhigaan. waxaadna moodaa in ururka Xisbullah uu ku adkaysanayo mowqifkiisa. wararka caalamkana waxaa ka mid ah ciidanka Bakistan ayaa sheegay inay 11 xag jir ah dad ay ku tilmaameen oo Hindiya ay taageerto inay ku dileen howlgallo laba ah oo ciidanka ammaanka ay ka qaadeen waqooyiga Waziristan iyo Kuram deegaanka la yiraahdo. waxaa la sheegay in dadkaasi ay ku dhawaayeen xuduudka waddanka Afghanistan. ciidanka ayaanay soo saareen ay ku sheegeen in ciidanka ammaanka ay howlgalladani ay la beegsadeen waqooyiga Waziristan oo ahaa mid xog la helay oo ciidanku ay ku howlgaleen. kadibna warbixino waxaa jira muujinaya in kooxihii xag jirka ee deegaankaasi ku sugnaa in ay waxyeelo gaartay dhimasho iyo dhaawac intaba hubkoodana lala wareegay. hay-adda u qaabilsan ciidamada u adeegyada bulshada ayaa warbaahinta u sheegtay in ciidamada militariga ay sharaxeen howlgalkaasi siday u qaadeen iyo cidda ka qayb gashay ee ciidamada amniga ah iyo booliiska gaar ahaan deegaanka Kuram. waxayna natiijada noqotay dhimashada 5 xag jir ah weerar kale oo meel kaloo gaar ah ka dhacay. dowladda Ruushka ayaa ku dhawaaqday Ukraine in weerar xagga droniska ay ku qaaday gudaha waddanka Ruushka. natiijadana ay noqotay inuu dab ka dhaco ama dab ka kaco goob shidaalka lagu keediyo oo ka mid ah gobolka Belgorod ee koonfurta bari ee Ruushka. gudoomiyaha gobolkaasi Belgorod Andrei Kusherov ayaa bartiisa Telegramka ku qoray in wax dhaawaca aan lagu soo waramin, isla markaasna dadka deegaanka ee ku nool agagaarkaasi laga kaxeeyey ama laga raray. wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Ruushka ayaa sheegaysa in ciidankeeda cirka ay soo rideen 67 diyaaradood oo kuwa droniska loo yaqaano ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine saacadihii ugu horreeyay ee saaka ay ku weerartay gobolka Belgorod. waa hagaag maxamed, aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashanu ay mahadsan yihiin. mar kale ayaan soo dhaweynaynaa. daawadayaal waxaan u gudbaynaa falanqaynta wararka iyo wixii warah soo kordha, ha yeeshee aynu ku hakanno. waa hagaag maxamed, waan u imaan doonaa wasiirka arrimaha dibadda Turkiga hadalkan cusub ee uu jeediyey ee ka dhanka ah aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland. laakiin wararka iyaga waxaa ku jirta warbixin ku saabsan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo sheegaya 10 sano gudahood in ay ka maarmi doonaan
taageerada dhanka militariga oo Israa'iil ka hesha Mareykanka arrintan waxaa si adag uga falceliyay mid ka mid ah xubnaha siyaasiyiinta waaweyn ee Mareykanka oo lagu tiriyo inuu aad iyo aad ugu dhow yahay Israa'iil bal hadalka uu sheegay Lindsey Graham inooga warran arrintan la xiriira Lindsey Graham waa senator ka tirsan Congress-ka Mareykanka wuxuuna ka mid yahay ragga ugu xag jirsan marka ay timaado siyaasadda waddanka Mareykanka lana jiray muddo dheer Israa'iil ayaa tallaabo aan hore loo ogeyn ku sheegay in isbeddel weyn ay siyaasaddiisa ku timid marka ay timaado xulafadii iyo mudnaantii dowladda Mareykanka siinaysay waddanka Israa'iil waxa uuna guddoomiye u yahay guddiga arrimaha dibadda iyo guddiga hoosaadka howlgallada wuxuuna soo jeediyey in si degdeg ah Mareykanka uu ku soo afjaro gargaarka military uu siiyo Israa'iil wuxuuna dalbaday in aanan la sugin muddo 10 sannadood in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu handisaa uu soo jeediyey uu ku sheegay arrintaasi Graham hadalkiisan ayaa wuxuu jawaab u yahay waraysi uu siiyey wargeyska ama warsidaha Economist la yiraahdo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu oo hoosta ka xariiqay in Israa'iil ee dhaqaalaheeda uu hadda xanaqaad noqday doonayana tartiib in loo yareeyo lacagta gargaarka military ee Mareykanka imaanaysa ee u dhiganta 3.8 bilyan oo laga dhigay eber sanadka markuu yahay 2036 halka uu tilmaamayo in maalgeliskaasi lagu xoojinayay awoodda ciidamada qalabka sida ee Israa'iil wasaate ilama aha buu yiri inaan u baahanahay inaan sugno 10 sannadood in barnaamijkaas lagu baltaarayo Israa'iil lagu soo laabo 10 sannadood Graham hadalkiisan oo barta X ku qoray ayaa waxa uu senator ku sheegay in bilaayiinta dollar isla markiiba loo wareejiyo in lagu taageero miisaaniyadda ciidamada qalabka sida ee waddanka Mareykanka isaga oo madaxweyne Trump uu raadinayo in uu lacagta ku baxaysa ciidamada uu gaarsiiyo 1 trilyan iyo 500 bilyan Israa'iil ayaa hadda la sheegay wax soo saarkeeda lacagta ka soo gashay GDP-ga waxa loo yaqaano inuu 1 trilyan ku dhow yahay waxayna ka mid tahay wadamada caalamka xagga dhaqaalaha ugu xoog badan ninkan ka tirsan Congress-ka Mareykanka ayaa aan u arkin in lacagta cashuurta Mareykanka lagu qarash gareeyo waddan aan u baahnayn Graham mowqifkiisan oo markii hore Israa'iil iyo Trump la jiray ayaa waxa uu muujinayaa dowladda Mareykanka sida ay rabtay inay hoos ugu dhigto qarashka ay dibadda ku qarash gareynayso si ay u xoojiso awooddeeda militariga marka la fiiriyo colaadaha caalamka oo dhan ka soo food leh maxaa loo waa gartay maxamed marka maxaa loo fasirin karaa hadalkan Graham waa la yaqaanaa waa nin senator ah oo xag jir ah oo muddo dheer u ololeynayay Israa'iil hadda waxaa muuqata culays xoog leh in Mareykanka dhaqaalihiisa ay soo food saartay marka la fiiriyo deynka uu ku jiro 38 trilyan ah marka la fiiriyo miisaaniyadda wax soo saarka waddanka iyo deynka uu ku jiro inay kala badan yihiin marka la fiiriyo miisaaniyaddan cusub oo hadda wasaaradda gaashaandhigga uu soo jeediyey madaxweynaha Mareykanka waxaasoo dhan marka la xorxoriyo iyo taageerayaashii Trump oo mudnaanta siinaya Mareykanka inay kaalinta koowaad gasho ayaa in dhawaalaba waxaa ka socday Mareykanka ole looga soo horjeedo in Israa'iil kharash la siiyo haddana waxaad moodaa in dabayshaas uu raacay Graham oo ah mid ka mid a taageerayaashii ugu waaweynaa Israa'iil waayahay waa tahay maxamed markaa bal waxaynu eegaynaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan waraysi uu siiyey telefishinka TRT qaybta gudaha la hadasha ayaa waxa uu kaga hadlay aqoonsigii Israa'iil ay siisay Somaliland bal hadaladiisa waxayna dhageysano I see Israel's recognition of Somaliland as the greatest misfortune possible for Somaliland. I mean, what greater misfortune could there be for a Muslim community, for a Muslim political entity? No one waxaan u arkaa aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland inuu yahay nasiib darro weyn suuragal ah oo u soo hoyatay Somaliland waxaan uga dan leeyahay buu yiri masiibo iyo nasiib darro ka weyn ma jirto in dad Muslim ah
oo sheeganaya siyaasad muslin ah in cid aqoonsatay inta waayeen in hadda ay aqoonsatay Israa'iil ma aha oo kaliya buu leeyahay cidda ay yihiin waxa ay u adeegaysaa arrin guracan iyo hadaf guracan